ay ilaaha uga baqdaan oo ay mooshinkan ay la ordayaan oo ay joojiyaan sidii maayir mooga mooshinka lagu joojiyay qabiilin lagu joojiyay hadahay aan ka xunaa arintaasi wallaahi maxay xilka qaadista maayirka saaka deebaan ku faraxsanahayo bulshada barooranaysa waliba hooyooyinka ay ka mid yihiin ee mishaarkoodu barooranaya ayaan la dareenahoon ka damqanay ilaahay maayirka ha inooga dhigo maayir naafaca cid alle cidii wax u qabanaysa in markaaba la bedelo ay siyaasadda jiraan maayirkii hore maayir aad magaalada wax ugu qabtay buu ahaa wadooyinkii buu wax ugu qabtay dhulkii jarka biyuhu marayay buu wax ka qabtay quruxdii magaalada ka shaqeeyay magaalada qurxiyay markaa nin wax tiro lama ogola nin wax cunun bal raba tuug wax lala cuno un bal raba maxamuudkaan suwaayey saadaalinayay soo dhawo maxamuudow saxarkii yimaadaba laamigii xumaadaba adigaa sufeeye xambaliyaan ku leeyahay assalaamu calaykum dadku doorasho iyo waxay ku wareeraan wax aan dantooda ahayn war gobolkiina hoos u eego ardaydiinniba meel ay martala caafimaad daraa laga qaaday kaneecaa laga qaaday aygii baa ku dhex baktiyey biyahan magaalada si ha laga yidhaahdo 7,000 oo qoys baa ku barakaco dadka guryahoodii ka baxeen subaxii hore saaka iyo xildhibaanada aqlabiyadda golaha deegaanka magaalada Boorama waxay xilka ay ka qaadeen maayirka magaalada Mustafa Faarax Qabile waxna aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Boorama ay maayir cusub u doorteen xildhibaan Maxamuud Sheekh Ibraahin haddaba shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boorama ayaan mikrofoonka la dhex qaadnay waxaana weydiinay sida warkaan xilka qaadista maayirka magaalada iyo sidoo kale maayirka cusub ee magaalada Boorama saaka ay yeelatay rayga bulshada magaalada Boorama ayaana waxa u dhignaa sida tan maayirkii hore horta waxbuu qabtay maayirkii hore waxbuu taray waddanka lama rabo nin wax tara nin wax cuno wax lala cuno la rabo marka waxa leeyahay maayirkii hore shaqo wanaagsan buu qabtay wadooyinkaas inoo sameeyay magaalada qurxiyay marka nin wax tara lama ogola nin wax cunun bal raba tuug wax lala cuno un bal raba ay hal laga fili karaa aslada maayirka cusub kani wuu cusub yahay oo isaga waxa laakiin ka hore waan ognahay waxa uu taray iyo shaqooyin ku qabtay kan see wali waxa uu taray deemaan lama saadaalin karo wuxuu yahay lama garan karo haddii aan ka hadlo maanta waxa weeye hadda nin miskiin cidna uma baahna kulley maayirka horena wixii uu qabtay bay lagu xusi doonaa kan dambe soo socdana waxa la xusi doonaa wixii uu qabtay isna marka dadku wixii u xisaabsan waxa weeyaan ama qofka wuxuu qabtay baa loo tirinaya ninka isaga saddexdaan wado iyo biriishkaas loo tirinaya hore tagay maayirkii hore ka dambana waxa loo tirinayaa inuu inta in leeg ama wax qabad ka weyn ha uu qabto inkastoo naan wali waxba ka arago cusub yahay isna waxa laga rajaynayaa waxa weey in sidaas oo kale loo bedeli doono haddii wax qabad keeni waayo oo wax la iman waayo taa ma rajaynina wallaahi maxay xilka qaadista maayirka saaka deebaan ku faraxsanahayo bulshada barooranaysa waliba hooyooyinka ay ka mid yihiin ee mishaarkoodu barooranaya ayaan la dareenahoon ka damqanay ilaahay maayirka ha inooga dhigo maayir naafaca dadka iyo dalkaba anfaca allah ha inooga dhigo Boorama wali maayirkeega way laadaayeen Boorama wali maayirkeega ma hayso maayirkeegi Boorama ma hayse horeysa iyo dambayso maayirkeegi Boorama ma hayse ilaahay ku naafaca inooga yeelan leh waxaan ka hadlayaa labada maayir ee kala bedelay maayirkii hore waxyaalaha uu qabtay waxa kamid ah halbowlaha suuqa ee miskiid Harawaa iyo miskiid Abuurare isku xidhaysa isagoo dhisay oo waxqabadkiisa la tabayo gobol kasta ama Hargeysa ama Burco ka noqoto ayaa haddana markiiba la bedelayaa waa la yaab waa arrin maskaxda qaadi karla anigu waxaan leeyahay maayirada daaya shanta sano markay dhameystaan hal la bedelo sida madaxweynaha kale laakiin si degdeg la qaadanayo hal laga daalinaya dadkan qorsheynta ka diya waana iga dardaarma leh waana soo dhaweynaya maayirka cusub ka horana aad iyo aad wuxuu qabtay waanu haynaa isbeddelka saaka ka dhacay magaalada Boorama waan soo dhaweynayaa maayirkii hore maayir qabiilana waxaan leenahay sunnaha dawladnimo bay tahay in saaka lagu bedelo xaqan waxaan soo dhaweynayaa maayirka cusub Masar Maxamuud kaasi oo isbeddelkii qabiile halka ka sii qaadi doona qabiilana waxaan leenahay waad qabatay wax oo magaalada drainage fara badan waad ka samaysay laamiyina waad ka samaysay inta insha Allah waxaad qabatay waan kugu mahadnaqanaa maxamuudna waxaan leenahay inta ka sii dardargali insha Allah magaalada Boorama waxaan leenahay saaka maayirka aad u soo dhaweeyaan maayir wanaagsan weeyaan Masar Maxamuud tomato isbedel weyn baa ka dhacay magaalada Boorama waxa weey maayirkii hore waan hambalyeynana wax qabadkii uu kaga tagay magaalada Boorama haday bilicda magaalada Boorama wadooyinkii drainage halka maraya waxa weey maayirkii hore wax qabad buu horta ku suntanaa maayirka cusubna waan soo dhaweynana waxaan leenahay inta uu maayirkii hore qabtay
in ka badan baan kaaga fadhinaa haddaan shacabka reer Boorama nahay. horta waan soo dhaweynaa MTV mar labaadka waxaan u arkaa in ay tahay waa laba nin oo walaala ah horta kii hore maayirkii hore xilka inoo hayay aad baan u hambaliyeynaynaa maxay ahaydey maadaama aanu nahay bulshadii gobolka Awdal taasaan degmada Boorama aad baan u hambaliyeynaynaa waxqabadkiisii maayirka cusubna aad baan soo dhaweynaynaa waa nin qaaliya waa nin mutacalima waa nin xirfad badan leh marka waa nin u qalma inuu degmada maamulo aad baan ugu soo dhaweynaynaa hambaliya baan leenahay salaadana xildhibaanka cusub ee hadda noqday maayirka maayirkii horena kulli wax fiican buu qabto waa kan dhulkii noo hagaajiyey hambaliya baan leenahay xildhibaan maayirkan cusub ee waddanka qabtay cid alle ciddii wax u qabanaysa in markaaba la bedelo ay siyaasadda jiraan maayirkii hore maayir aad magaalada wax ugu qabtay buu ahaa wadooyinkii buu wax ugu qabtay dhulkii jarka ee biyuhu marayeen buu wax ka qabtay quruxdii magaaladu ka shaqeeyey wuxuu ka shaqeeyey quruxdii magaalada biyihii buu ka duwaylaamaydii quruxda magaalada maanta waad arkaysaa caasimadda inay tahay maal uu ka dhigay waad arkaysaa tiitarka waad aragtaa hargeysa u baxaysa waad aragtaa marka waxa weeye maayirkaasi waa lagu gafay baan leeyahay xukuumadda ha ka noqoto baan leeyahay arrintaasi oo si degdeg ah uga fiirsata maayir gobolkan Awdal waa gobol biyale caqabada ugu weyn waxa aan dadku inta badan aan ka hadal baa jira gudahooda hoos uma eegaan gobolkan waa gobol biyale waxa jira dhowr boqol oo qoys ayaan dawladda ku boorinayaa ilaa 7,000 oo qoys oo maanta barakacayaala oo guryahoodii way guuray meel ay degaan iyo meel ay maraan iyo meel ay waxbarashadii u maraan la marka maayirka cusub waxaan leeyahay hawlo badan baa ku hor yaala shaqada koowaad ee qabataana waa inay noqotaa sidaad hay'adaha caalamiga iyo dadka aqoonta joolajiga u leh aad u keeni lahayd gobolkan ee biyaha wax looga qaban lahaa xilka hawsha koowaad ee qabanaysa inay taa noqoto xilkuna waa meerta wax lagu daala maaha maalinba nin baa fuula wuu ku mahadsan yahay maayirku wixii uu qabtay ka dambana insha Allah waa la arki doonaa waxa uu qabto dawladana baaq dheer iyo baaq qaaban baa u diranaa inay gobolkan Awdal hoos u eegto dadku doorasho iyo waxay ku wareeraan wax aan dantooda ahayn war gobolkiina hoos u eego ardaydiinniba meel ay martala caafimaad darra laga qaaday kaneeca laga qaaday aygii baa ku dhex baktiyey biyahan magaalada si ha laga yiraahdo 7,000 oo qoys baa ku barakaco dadkii guryahoodii ka baxeen waa si fiican weeye maayirka la bedelay hadda iyo kii hore intuba way mahadsan yihiin waa niman wax soo saar leh wax qabad leh aanan wax dhiba aan laga sheegin dalka iyo dadku way jecel yihiin anigu waxaan ahaa nimankii hore ee dhacay ee maayirada hore ku soo badnaa nimankaasna waxaan leeyahay Allah ya nabad yeelo meesha ha ku soo noqonina waxa si fiican baan u arkaa waa caadi xilku waa meerto maalin bacid baahanato loo dhiibaa maayirkii hore waan ducaynaynaa wuxuu qabtayna waan ku hambaleynayaa maayirka cusub maxamed sheekh ibraahim waan soo dhaweynaa mudana maayirka cusub soo dhaw waan ku leenahay halkaa ka sii ambaqaad meel ka sii sarreysay gaarshii waan ku hambaleynayaa maasha Allah anigu waa sheekh maxamed jibriil xirsi waxay la tahay maayirkan kulba maayiradan iyadoon la badbedelayo maayirkii hore qabille waxqabadkiisu aad buu fiicnaa waxqabad badan magaaladu biyo mareenas badan buu sameeyey marka xilka qaadistaasi xilka qaadis lagu degdegay baa waan ka xunnahay waa inay dawladda dhexe iyo mar kastoo xildhibaanadu ku degdegayaan maayirada inay sidii ay ka hargeysa ugu qabatay maayir mooge sidii ay uga qabteen inay ugu qabtaan baa waan ka xunnahay maayir qabille xilka laga qaaday waxaanan ugu baaqaynaa magaranaysaa xildhibaanada inay magaranaysaa mas-uuliyaddooda gartaan oo ay magaranaysaa qofka ummadda wax u qabanaya inayna magaranaysaa mooshin kula cararin oo ay ummaddooda u naxaan oo ay dan yarta dadka tamaandhada laga soo qaadayo kunka shilin iyo dadka magaranaysaa dan yarta ay u turaan ayaanu ugu baaqaynaa ilaahayna ka cabsadaan oo ummaddooda duruufaysan ee tabaalaysan ay ilaaha uga baqdaan oo ay mooshinkan ay la ordayaan oo ay joojiyaan sidii maayir mooga mooshinka lagu joojiyey qabiliin lagu joojiyay hadahay waan ka xunaa arrintaasi maayir qabiliin oo taageersannahay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan rajaynaynaa maayir qabiliin wax badan u qabtay maayir baradho ka horreeyayna wax badan u qabtay habase ahaatee maayirkan iminka la doortay maxamuud sheekh ibraahimna waynu soo dhaweynaynaa inkastuu yahay nin dhanyara oo maanta caqabadaha magaalada aad iyo aad ula socda qaybta dhallinyaradoo aad uga tiifta uu soo kicinayo maxaaahday qabiil wax badan u qabtay laakiin maxamuudna waxaan ka rajaynaynaa inuu wax badan uu qabto dawladnimaduna oo qori isku dhiibtaa kii hore wax uu qabto oonu aragnay kan dambana bulshada waxaanu ku leenahay
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kii hore iyo kan imidayba kii hore inuu ilaahay wuxuu qabtay ku afsano kan imiday saakoo khamiisna waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay xilka ku afsano waxaan rajaynaynaa inuu isfiican yahay isbeddelku oo ka yimaadaya ka kale insha Allah wala shaqeyn doonaa ku ilaahay qadar horba nin ba ku dhacda ninkii ilaahay u qadarin ba ku dhacda kii hore u fiicnaa kan dambana u fiican yahay laakiin nimankan camti xildhibaanada waxaan leenahay dadkiina ilaaliya oo ilaahay ka cabsooda oo camti waxa weeye kolba kale dawladdu soo dhismaysa wadooyinkii noo dhismayaan ilaaliya sidaasaan ilaahay ka rajaynaya soo dhawow saaka meerka hore magaalada Boorama ayaa xilka laga qaaday maar cusub la doortay sawirka wallahi xilkaasi xilkoota waa wareegto laakiin aniga waxaan u arkaa xilkaasi inuu dib u dhac gobolka Awdal lala maagan yahay ay tahay xilkaasi la bedelayo maayarkii hore aad iyo aad u boqolkiiba boqol ugu wanaagsanaa xilkana uu ku habboonaa in maayarka hore uu xilka sii hayo maadaama uu magaalada budicdeeda iyo horumarka magaalada uu ka shaqaynayay maayarkaasi horta ma ahayn maayar la bedelo ray ahaan laakiin waxaan waa wax naga weyn oo halka laga soo abaabulayo marka waxaan raygaygu ila tahay in maayarkii hore uu maayarkani uu kala dooranayo uu ka wanaagsanaa boqolkiiba boqol ma sha Allah waxaan soo dhaweynayaa maayarka horena waa sabootinayaa maayarka dambana waa soo dhaweynaa inay hordaayir weyn maxamuud waxa weeyaan waxana waa isku qordhib xilku ninna ma imina inuu kaliya u haysto markasta laakiin maxamuudna waa soo dhaweynayaa qabiilana waxa leeyahay wax badan wax taray maxamuud waadna waxa laga suuyaa sida qabiil dhulka u hagaajinaadna u hagaajisin wana kugu kalsoonahay inay yardaayir la tahay diixiro gabayaan oranaya maxamuud kan suwaayay saadaalinayay soo dhawo maxamuudow saxarkii inaadaba laamigii xumaadaba adiga sufeeye xambaliyaan ku leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wallahi nafta maarkii hore magaalada Boorama waxqabad fiican buu gobolka soo kordhiyay wadooyin aad u wanaagsan oo tayo leh uu sameeyay maarkan dambe hadda la magacaabana isaguna waa nin aad u wanaagsan oo shaqadaasi hore uu sii garanayay marka maxamuud sheekh Ibraahim waxa ka falaya isaguna inuu noqdo inuu horumarkii hore soo faarax cilmi sameeyay waxa halka sii wadaan isaga ruusheynaya waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka MMTV Boorama farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka